السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adjectives sifooyinka. Halkan waxaynu ku qaadanaynaa sifooyinka definition qeexitaan. Markaa sifooyinku waxay yihiin inoo qeexayaa. Adjectives are words. Wuxuuna yidhi sifooyinku waa hadallo, waa weedho that taasoo markaa qualify wax ku darta nouns magacyada. markaa sifo waxay wax ku dartaa magacyada, qaabka ay wax ugu dartay ugu kordhisana waynu isla arki doonaa. 8 kinds of adjectives. 8 kinds sideeda nooce of adjectives. sideeda nooce markaa sifada u kala baxdo ayaynu halkan ku qaadanaynaa. sifada koowaad muxuu ina yidhi descriptive adjectives, sifooyinka wax sharaxa sharaxaada markaa bixiya. Proper adjectives, sifooyinka gaarka ah. Demonstrative adjectives, sifooyinka wax tilmaama. Possessive adjectives, sifooyinka lahaanshiya. Interrogative adjectives, sifooyinka su'aalaha. Emphatic adjectives, sifooyinka ta'kiidinta wax adkeeya. Numerical adjectives, sifooyinka tirooyinka. Adjective degrees, sifooyinka heerka, sifooyinka markaa ka hadla heerka shay leeyahay. markaa aynu guda gallo sifooyinka inagoo midh qaadanayna. Descriptive adjective, sifada sharaxaada bixisa ee sida gaarka ah markaa wax u sharaxda. These adjectives, sifooyinkani show waxayna tusiyaan the quality of a person or thing, tayada uu leeyahay qof amaba shay. They describe waxay sharaxaan the shape qaabka, size-ka, color midabka, taste dhadhanka, and quality of nouns iyo tayooyinka magacyada. Examples, halkan tusaalayaashii muxuuna yidhi you are a good student. You are waxaa tahay a good student, arday wanaagsan baa tahay. markaa good maxay noqotay? waa descriptive adjective. Student, markaa student waa noun, waana kiina lahaa sifooyinku waxay wax ku daraan magaca oo wax ku siiyay. markaa student oo ardayga ah maxaa uu raacay good oo wanaaga. haddii bad la yidhaahdana waa sifo, iyaduna waa sifo markaa xun oo qofkii lagu sifaynayo. tusaale xiga, this is a big house. kani waa guri weyn. markaa muxuu sheegay gurigu inuu guri weyn yahay, laakiin keliya muu odhanin guri. This is a white girl. tani waa inan cad. markaa wuxuu sheegay inay inan tahay, hase ahaatee ay cad tahay. markaa sifadii buu raaciyo wayda. This is a delicious food. tani waa cunto dhadhan leh. Delicious markaa waxa uu sheegay taste waa dhadhan. This is a round table. kan waa miis wareegsan markaa roona. markaa muxuu sheegay miisku sifada uu leeyahay ee u gaarkaa. This is a large classroom. This is a large classroom waa glass weyn. markaa large ayaa descriptive adjective. It is a rectangular blackboard. markaa halkan muxuu yidhi it is waxa weeye a rectangular waa markaa waa afar gees. blackboard waa samuurad markaa afar geesa buu ina yidhi. It is a circular hall. waxa weeye kani waa qol markaa wareega oo circular ah. The colorka of this shirt uu leeyahay shaarkani is yellow waa huruud. markaa yellow, circular, rectangle, large intaasoo maxay noqonayaan? intaas waa descriptive adjective oo iyagii baa markaa kala baxayo. large waxay ka hadlaysaa dee waa size. yellow marka lagu yidhina dee color bay ka hadlaysaa. waaya aynu kusii soconno. They were brave men. They were waxay ahaayeen
brave men rag geesiyiina ayay ahaayeen. halkan waxaynu ku soo galay proper adjectives sifooyinka gaarka loo leeyahay. adjective formed sifooyinka waxa loo qaabiyey oo qaab markaa looga dhigay from proper nouns iyagoo markaa laga dhigayo magacyo khaas ah wax khaas loo leeyahay. are called kuwaasoo markaa lagu magacaabo proper adjectives sifooyinka gaarka. Ethiopian waa Ethiopian markaa waa wax Ethiopian leeyahay oo Ethiopia u gaara. Kenyan waa dadka Kenyaanka. An American iyo American. Examples tusaalayaashii I like Brazilian coffee. I like waxaan jecelahay Brazilian coffee. Kafeega Brazilianka ayaan jecelahay. He listens to Ethiopian songs. He listens wuxuu dhageystaa to Ethiopian songs heesaha Ethiopianka. These are Sudanese workers. These are kuwani Sudanese workers waa shaqaalayaal Suudaaniyiin. marka halka maxaanu aragnaa Suudani, Ethiopian, Brazilian waa wax u gaara meel gaara marka wadanka gaarka uu leeyahay tusaale marka waa sifada wax gaara muujinaysa. They sang many Somali songs. They sang waxay heeseen marka many Somali songs heeso badan oo Soomaali leedahay. marka Somali waa Soomaalida ay marka gaar u tahay oo waa wax markaa proper adjective waa sifo gaara. This is an African promise. This is an African promise kan waa ballan Afrikaan. marka waa ballan oo Afrikaan qaad marka African maxay noqonaysaa waa proper adjective waa sifada markaa u gaara shay. We have American passports. waxaanu haysanaa passport Americana. Demonstrative adjectives sifooyinka markaa wax tilmaama. Indefinite demonstrative adjectives sifooyinka wax tilmaama indefinite-ka ee sida cad wuxuu tilmaamay. These are used kuwan waxaa loo isticmaalaa to point out inay tilmaamaan something shay or somebody ama qof definitely si cad and they are waxayna yihiin this kan that ka this kuwan those kuwa such sida. They are placed waxa ay yaalaan markaa place garaysan yihiin before the nouns magacyada ka hor way ka hormaraan markaa magacyada. Examples tusaalayaal this man is father. ninkani waa aabe markaa this ba noqonaysa demonstrative adjectives. I like that teacher. I like waan jeclahay that teacher macalinka waan jeclahay. These horses fardahani are mine waa kuwaygii. I hate such place. I hate waa necba such place meeshan oo kale. We like those singers. We like waanu jecelahay those singers fanaaniinta waanu jecelahay. marka halkan tilmaamayaasha baynu eegaynaa oo kaliya oo sif ahaan marka halkan ugu jiro oo ah demonstrative adjectives. halka waxaynu ugu soo gudagalnay indefinite demonstrative adjectives sifooyinkan sida cad wax u tilmaamin. These are used waxaa loo isticmaalaa kuwan to point out inay tilmaamaan something shay indefinitely si aan qeexnayn and they are waxayna kala yihiin a an another other etc iyo wixii raaca. marka muxuu yiri imka halkan this is a car. this is kanu a car waa gaari. marka ma garanayno gaariga nooc yahayba waxaan tilmaamnayn. We found other hostages. We found waxaanu helay other hostages la haystayaal kale dad kale oo markaa la haystayaala ayaanu helay marka other ma garanayno waxay yihiin ba ma qeexna. This is an incredible story. This is tani an incredible story waa sheeko incredible oo markaa cajiiba. waayahay an other another intaasoo marka maxay muujinayaan waa sifooyinka aan qeexnayn wixiiba ma lama garanayaba
waayo iyo aan horeyn u soo qaadan articles u soo qaadanay daana waxay sheegi jirtay wax la isla garanayo oo sifa ahaan labada qof ay isla garanayaan. I have another question for you. I have waxaan hayaa oo aan ku hayaa another question for you. su'aal kale aan ku hayaa another marka su'aasha kale ku hayaa ma garanayso another ba meesha ku jirto ah indefinite demonstrative adjective possessive adjectives sifooyinka lahaanshiyaa. These adjectives sifooyinkani are genitive form of personal pronouns waa qaabkii lahaanshiyaha ee personal pronouns magacyaalka dadka. And they are waxayna kala yihiin my waxayga, our waxayaga, your waxaaga amaba wuxooda, his wixiisa, her waxeeda, is waxeeda oo ah wixii aan caqliga lahayn, their waxooda. Examples tusaalayaashii. This is my bag tani waa shandadaydii. These are our friends kuwani waa saaxiibadayo marka my waa waxaagii, our waa waxoodii oo waa saaxiibadoodii marka. These are their children kuwani waa caruurtoodii. His color is white kalarkeedu waa cadaan. Where is her husband mee ninkeedii. Interrogative adjectives sifooyinka su'aalaha marka su'aalaha sameeya. These adjectives sifooyinkani are used for asking questions waxa loo isticmaalaa su'aal weydiinta. And they are waxayna kala yihiin what maxay, which wixii, whose kee, how much imisa, how many imisa marka how much waa waxaan la tirin karin, how many na wixii la tirin karay ahayd. Examples tusaalayaashii. What color are you looking for? What color midab nooceeyaba are you looking for aad raadinaysaa. Whose shirt is this yaa leh shaarkan. Which country are you from wadankeebaad ka timi. How much money do you have imise lacagabaad haysataa. How many children do you have imise caruura ayaad leedahay. marka halkaa waxaynu ku qaadanay interrogative adjectives sifooyinkii su'aalaha. marka halkan maxaynu ka fahmaynaa what which hore waynu arki jirnay sax laakiin halkan what muxuu raaciyay what color are you looking for buu yidhi. color nooceeya baad raadinaysaa marka color waa sifo dee. whatna maxay markaa noqonaysaa interrogative adjective waa sifadaad su'aal ahaan wax ugu weydiin karto qofka. Numerical adjectives sifooyinka tirooyinka markaa. Numerical adjectives sifooyinka numberadu are three types waa saddex nooc. Cardinal numbers oo markaa maxay ah 1 2 3 haddii 1 2 3 aad aragtay waa cardinal numbers. Ordinal numbers ayaa ah qaybta labaad oo maxay noqonaya first, second, third, fourth oo first maxay ahayd ugu horeyn, second marka labaad, third marka saddexaad, fourth marka afraad. waaye distributive numerical adjectives baa halkan iyaguna qayb saddexaad. Distributive numerical adjectives sifooyinka numberada ee wax kala qaybiya ee markaa qaybta sameeya. wuxuu yidhi each mid, either midkood, every mid kasta, neither midkoodna. markaa numerical adjectives intaasay u kala baxdaa cardinal, ordinal and distributive numerical. Examples tusaalayaashii. One soldier was killed hal askari baa la dilay. markaa halkaa maxaa ku jira one maxay tahay markaa one waa cardinal numbers. The second month of the year is February. The second month bisha labaad of the year sanadku leeyahay is February waa bisha Febraayo. markaa second maxay xagee ku tirsanta
Second xagee ka tirsan tahay ordinal numbers bay ka tirsan tahay. Every dog has a day. Every dog ay kastay has a day maalin buu leeyahay. The police caught the 10th suspect. The police caught waxay qabteen the 10th suspect. Qofkii tobnaad ee laga shakisanaa bay qabteen. This is the 9th edition of the book. This is tani waxa weeye 9th edition of the book. waa daabacaddii 9aad ee buugga. 9th waa qaybteeba ku tirsan tahay waa ordinal numbers. markaa ugu first, second, third, fourth intaasuba waxa weeye waa ordinal numbers. marka ordinal numbers fahanto labadii kalena waad kala fahmi kartaa oo cardinal numbersku waa inaga badanaaba iska adeegsana 1 2 3 ee tir ahaan maca loo tiriyo. You can find trees on either side of the river. You can find waxaad heli kartaa trees geed ama dhir ayaad ka heli kartaa on either side midkood markaa of the river dhinacyada uu leeyahay webigu midkood ayaad ka heli kartaa dhir baa lagu yidhi. markaa halkaa maxaa ku jira either oo ah distributive numerical adjectives. Emphasizing adjectives sifooyinka waxadkeeya. These are used for intensity. waxaa loo isticmaalaa adkayn. marka aynu u gudagallo aynu fahmi doonaa insha allah. Examples tusaalayaashii. This is my own mobile phone. This is kan waxa weeye my own mobile phone waa mobilekaygii. marka my waa waxaygii sax. halkii markaad ka odhan lahayd kani waa mobilekaygii ayaad sii adkaynaysaa. marka own baa adkayntii oo ah emphasizing adjective sifada markaa adkaynta ta'kiidinta. Somaliland has its own police forces. Somaliland has waxay leedahay its own police forces booliskeeda. marka own ayaa ta'kiidina. He lost the same bag. He lost wuxuu lumiyey the same bag shandad la mida. markaa mid horaa malaaka luntoo kale markaa shandad tii la mida oo kale ayuu lumiyuu yidhi. same markaa maxay noqonaysaa waa emphasizing waa adkayn. Adjectives Degree sifada ka hadasha heerka. Adjective degrees sifooyinka ka hadla heerku are 3 degrees waa 3 heer. Possessive degree markaa ah degree caadiya oo xaaladda koobaada. Used waxaa loo isticmaalaa to describe in lagu sharaxo one person or thing hal qof ama hal shay. markaa sifada koobaad hal qof baa lagu sharxi karaa ama shay. Comparative degreega labaad ee isbarbardhigga. Used waxaa loo isticmaalaa to denote in la tusiyo lasoo saaro a higher degree heer ka sarreeya heerkii hore of quality oo markaa of quality oo dhanka tayada. Superlative degree waa degreega ugu sarreeya. Denotes wuxuuna tusiyaa the highest degree heerka ugu sarreeya of quality xagga tayada. markaa tayaa laga hadlayaa waa sida ay ugu kala sarreeyaan. Examples tusaalayaashii. Abdi is a tall boy. Cabdi is a tall boy. Cabdi waa wiil dheer. Though inkasta oo Ahmed is taller than him. inkastoo Ahmed ka dheer yahay. markaa tall maxaa kusoo biiray er iyo den markaa u fiirso weligaa waa THEN weeye tii hadalka isku xidhiidhin jirtay ee den dabadeed la odhan jiray laakiin tan baa halkan ugu jirta. markaa iyo bay ku kala duwan taa ogsoonow. Taller than him wuu ka dheer yahay isaga buu yidhi. laakiin Ali is the tallest boy. laakiin cali waa ka ugu dheerba. tallest est buu markaa raaciyey. halkan maxaynu ku soo gallay isbarbardhiggii.
Possessive qaabkii caadiga ahaa ee halka shay lagaga hadlayay ama halka qof tayadiisa markaa. Comparative isbarbardhigii heerka labaad waa isbarbardhig. Superlative heerka ugu sarreeya marka halkan muxuu inoogu bilaabay slow wax hooseeya, slower kasii hooseeya, slowest ugu hooseeya. Great cajiib, greater ka cajiibsan, greatest ugu cajiibsan. Large weyn, larger ka weyn, largest ugu weyn. Soft jilicsan, softer ka jilicsan, softest ugu jilicsan. Dry qalalan, drier ka qalalan, driest ugu qalalan. Powerful awood leh marka halkan u fiirso. Powerful marka la yidhi maxaa la raaciyay oo comparative isbarbardhig u noqday. More powerful ka awood badan. Most powerful ugu awood badan. Beautiful qurux badan. muxuu markaa raaciyay more beautiful ka qurux badan. Most beautiful ugu qurux badan. Okay, marka halkaa waxaynu ku fahanay isbarbardhigii heerkii ugu sarreeyay iyo heerkii caadiga ahaaba. marka arday waxa lagaaga baahan yahay inaad adigu markaa isku day samayso oo tusaale imika kale marka aad leedahay qof waan ka qurux badanahay iyo marka aad leedahay waan idinku qurux badanahay waa xaalad kale oo maxay noqoni intan bad more iyo most umaad raacini. marka aad leedahay waan ka qurux badanahay maxaad leedahay I am more beautiful than you. dan ka tagi maysid than you. haddaad leedahay waan idinku qurux badanahayna maxaad leedahay I am most beautiful. I am anigu most beautiful anaa ugu qurux badan. markaa isbarbardhigu waa sidaa. markaa inaad isbedel la samayso waa kuu muhiim ardayow. waaba haddii aad tahay arday dadaalaya oo hadaf kale barashada luuqadda. waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.